labaatan sano kadib magaalada Jigjiga waxay martigelinaysaa markii ugu horeysay orodka maradoonka ee dalka Itoobiya. Tartanka orodka maradoonka ah kii 17aad isla markaana dhanna 42 kiiloomitir ayay ku loolamayaan in ka badan 13 kooxood oo isugu jira rag iyo dumar. Kusimaha madaxweynaha deegaanka ana hoggaanka nabadgelyada ee dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mubashir Dubbad Raage, madaxweynaha xiriirka ciyaaraha fudud ee dalka Doroor Tuule iyo mas'uuliyiinta xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa xaadir u ah tartanka. Waana ku guuleysatay kooxda ka socota bangiga ganacsiga dalka. Wareen waxa goobta ka hadlay kusimaha madaxweynaha ahna hoggaanka nabadgelyada ee dowladda deegaanka Soomaalida Mubashir Dubbad. Shacabweynaha dowladda deegaanka Soomaalida, madaxweynaha isboortiga, madaxweynaha ciyaaraha fudud Commander Doroor Tuulu iyo madax sharafeedka faraha badan ee maartay dowladda deegaanka Soomaalida ee ka soo qayb galay. Dhammaantood waan u mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay bagaad nabadgelyo ku timaadeen dadka martida ee noo yimid. Waxaan leenahay shacabka deegaanka Soomaalida sida quruxda badan ee aad u soo dhaweyseen ciyaartu inoogu qabsoontay. Waan maaragtay u mahadnaqaynaa martidii maaragtay dowladda deegaanku ay u martigelisay maaragtay ciyaarahan. Arrintan waxayna tusaysaa oo ay tusaale inoogu maaragtay inoogu tahay nabadgelyada, deganaanshaha iyo horumarka maaragtay ka hana qaaday dowladda deegaanka Soomaalida. waxa weeyaan ciyaartii 17aad 20 sano kadib dowladda deegaanka Soomaalida lagu qabto ee maraatoonka qori isu dhiibka ah ee 42 kiiloomitir ah. waxa aan leenahay bagaay si nabadgelyo inoogu dhamaatay, bagaad nabadgelyada ku timaadeen dadka maaragtay yimid oo dhan. waxaan leenahay hambalyo shacabweynaha dowladda deegaanka Soomaalida. waxaan raaligelin ka bixinaynaa shacabkii maaragtay jidka maanta laga xidhay iyo dadka maaragtay cadceedda toognaa, laakiin waxaan leenahay maadaama hawl qaran tahay oo hawshan hawl qaran ay tahay inaan dulqaad muujino oo dad samraya nahay ayaan maaragtay muujinaysaa oo inaan muujino weeyaan. marka dhibaatada yar ee nagu dhacaysa Addis Ababa marka lagu qabanayo xafladaha sidan oo kale jidadka waa la qabtaa, jidadka waa la xidhaa. marka inta yar jidadka la xidhna shacabka waan ka raali gelinaynaa. waxaan leenahay hambalyo. dhageysta kale waxaa dhankiisa ka hadlay wasiirka ciyaaraha dowladda deegaanka Soomaalida Maxamed Mahdi. saaka aroortii 7 barkii aroornimo bilaabmay wuxuuna soo gabagaboobay hadda waad aragtaan 10kii cabaar ay tahay. tartanku wuxuu ahaa mid 42 kiiloomitir waxaa ka soo qayb galay 16 kilab iyo 2 deegaan kuwaas oo dalka oo dhan matalayay. marka tartankan wuxuu qayb ka yahay orodweynayaashii lagu qaban jiray wadannada oo dhan marka si qurux badan buu soo gabagaboobay. waad aragtaan jawiga taasi waxay tusinaysaa in deegaanka Soomaalidu yahay meelaha ugu amniga badan inuu deegaanka. tartankan oo lagu qabtay sanadii 1994 ayuu deegaanka Soomaalidu martigelinayaa tartanka dheer ee orodka maradoonka, waana markii labaad ee lagu qabtay caasimadda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga. Mudiin Aadan Maxamed, warbaahinta RTN, Jigjiga.